filimku wuxuu ku bilaabmaya Maahireer isagoo yar labadiis waalid la socda iska faraxsan waqti ciid fiir ay soo dhowdahay waxay u soo baxayeen inay soo shabi gareystaan ciid maadaama soo dhowdahay waxay iimanayeen meesha kabaha lagu iibiyo oo kabaha nin odaygii meesha haysta wuxuu hadiyad ahaan u siinaya kabaha Maahireer isugu ciido oo uga farxiyo kadib wuxuu ku codsanaya wiilka inuu soo fiirinaya yani faqiir maaha abala yahay kadibna wuxuu oranaya ka farxiso adeerkaaga ka farxiyay kabaha Maahireer wuxuu siinaya kabaha ayuu siinaya inanka sabaayad wareejinaya ayuu ku oranaya ku afur uu siinaya labadiis waalid waxay uga soo baxayaan meesha ka soo baxayaan iyagoo dawada maraya waxa la tooganaya Maahir aabihi la tooganaya waxa tooganaya wiil yar baa tooganaya kadibna halkaas ayuu ku waayay Maahireer aabihi ayadeed waxay u tilmaamaysaa inay aado god ay ku soo ducaysato oo maadaama ducada qadarta badasho kadib markay godka aado waxay la kulmaysaa Maahir baa iyaga Maahir hooyada ku soo noqonaya magaalada ku soo noqonaya maadaama uu doonayo arkosto magaalada ku soo noqonaya kadibna waxa arkaya faras meel yaalo arkay ku soo beeraya kadib wuxuu la kulmay Jaafiso biyo ku jirta halkaas isku baranayaan kadibna xabadu ku dhufanaysa markaas suucan isku baranayaan guriga ku noqonaysa maanta daba imanayeen sida saaxiibada oranayaan wax sameynaa nasiibkeena tijaabinayna farqaliya ba gelinayna caag barka gaar bay biyo dhexdhigayna nasiibkeenu aadaya kadib qofkaas in guursan nacama kadibna halka waxay kula kulmaysaa Maahir mar labaad aabeedu Xuseen nin buu siinay aanu rabin oo ganacsi waxa ka bedelanayo Maahir aabeega wuxuu imanaya arooskaas uu imanaya argoos uu socdo odaygan Jaafiso aabeed laakiin ma ogeyn yahay aabeed iyo arooskeeda midna ma oga kadibna wuxuu doonayay inuu ganacsiga sharci darrada u qabto xabsiga u taxaabo kolaas sana kadibna uu la kulmo dilaaga aabihi Jaafiso arkaysa kadib wuxuu ogaanaysaa inuu yahay qof booliska ka tirsan riyada maanta la ku riyootan wuxuu fasiraysaa inuu yahay qof dawladda ku jira inuu ahaa kadibna way baxsanaysaa maajis bay soo diraysaa kadib isagu markuu la kulmo wuxuu ogaanaya inay tahay dilaaga aabihi inantiisa inay tahay kadib familiga uu sheegay meesha joogto location-ka way imanayaan kadibna ninkii ayna rabin bad dib loogu guurinay hadana laakiin aroos wali mu dhicin filimkana wali ma dhamaan qordu maro aadmi daawado Yusuf Badin kunti biparsa kadai anigu qorto laabto donte makatado daybaye qordu maro aadmi daawado Yusuf Badin kunti biparsa kadai anigu qorto laabto donte makatado daybaye qordu maro aadmi daawado Yusuf Badin kunti biparsa